afartiisa koono waa looga dabaaldegay casuumadaha looga dhigay waa laga soo dhaweeyay nin Soomaaliyeed oo musharaxa oo dhul sida u kala duwan oo beero sida u kala duwan ay ku kala nool yihiin oo saa looga soo dhaweeyay ma jiro marka taa waxa weey in uu Soomaali yahay oo wax qabadkiisu u dhamaan ummadda Soomaaliyeed wada gaarsiisan yahay yaad ku garanaysaan hadna loogu doorto insha Allah ta'ala halkan ragga fadhiya sidii uu sheegay aadan cod bixin maysaan oo maanta food ma jiro oo idin ma lihin noo codeey laakiin waxaan idin leenahay wiilkii muxuu hooyo aabihii ku yiri aaba waxaan adna wax ku yeeray anna wax itaraya hooyo ay ugu dheh wiilka haruubka loo buuxiyo wadnimanka hal la doorto sanad Soomaali naga gaarsiiyo insha Allah ta'ala mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadinayna soo qaybgalka iyo soo dhaweynta iyo aqbalaada naga aqbasheen iyo nala soo gudbisaan musharax madaxweyne waa ka cudur daaranaynaa dilay haduu yimid salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وياي garaadku dhiirigelinta uu nasiyay fariintaas waxaan rajaynaynaa in ay wada anfacday garaadku khayr la siiyo wuxuu idin la garnaqsaday wuxuu ina xasuusiyay gabayga caludhuuxi ahaa ana idinku garleeh geel ay ugu siiyo caludhuux geel markii laga dhacay 14 qodob buu tiriyay niman abtiyaalna oo ah xididna ay yihiin walaalana la ah ayuu la garnaqsanayay marka annaguna waxaan ku leenahay annaga idinku garleeh Bashir nala doorta aad baad mahadsantihiin garaadku wuxuu inoo furay dhaqankii Soomaaliyeed oo meeshan ku dhan marka waxaynu ku qasbanahay inaynu siyaasiyiinta dibdegana ee dhaqanka aynu israacsano siyaasiyiinta waxa inoogu culus oo inoo bilaabi doona hadalka siyaasiyiinta Professor Dalxa dhaqanka ayaynu israacsanaynaa sida uu ixtiraamku inoo dhigayo waxaynu u yeedhaynaa si xushmad la ila soo dhaweeya oo qaali ah imaam Umar Macallin imaamka halayla soo dhaweeyo imaamka sideedan halayla soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري waxaa mahad iska leh Allah rabbul alamin marka labaadna xafladan quruxda badan ee qiimiga badan ee mas'uuliyadda iyo dawladnimada iyo islaamnimada iyo walaaltinimada ay ku dhahan tahay dadkii soo qaban qaabiyay oo ka soo shaqeeyana waxaan leenahay waa u mahad celinaynaa intaas kadib garaadku garaad jaamac oo aan saaxiibo dhow nahay kana mida sidii loo sheegay dhaqanka tirarkiisa Soomaaliyeed wuxuu yiri hana la soo dhaweeyo musharax madaxweyne Bashir Xaaji Jaamac Ali maaduu garaad jaamac yiri dadku si isku xiran yihiin siyaasiyiintuna si isku xiran yihiin dhaqanka Soomaaliyeedna si isku xiran yahay annagu hadda inteena maanta dhaqanka oo meeshaan isku timid garaad jaamac warkiisaan qaadanaynaa garaadka warkiisaan qadarinaynaa waana khayr iyo xugun Soomaalida u yaala soo dhawaaw musharax madaxweyne Mr. Bashir innaga oo maaragtay garaad jaamac warkiisa qaadanayna waxaan soo dhaweynaynaa musharax madaxweyne Bashir Xaaji Jamaal Ali soo dhawaaw walaaltinimo ku soo dhawaaw islaamnimo ku soo dhawaaw mudnaan aad mudan tahay dalka Soomaaliyeed haddii Ilaahay ku caleema saaro guddoonkiisa iyo taladiisa ku soo dhawaaw intaas kadib maraba laftirkii warka inaan badiyo dad waaweyn fadhiyo miisaan leh haddii laakiin la aftirsado oo gobonnimada iyo dawladnimada iyo gunka carabka
عيسى محمود كسو جيد marka intaas garad jaamacan leeyahay garad jaamac inaguna calankan iyo xorriyadan iyo dowladnimadan Soomaaliyeed United Nations ka dhex keenay oo iyadoo Soomaali isku duuban ka waxaanu nahay dadkii markii 2000 Cabdi Qaasim Salaah Xasan madaxweynaha laga dhigay garad jaamac nimankii ra'iisul wasaaraha ka dhigay soo dhawow naga dhaxaya waa intaas waxay ahayd gobolka Soomaaliyeed abaalgudka marka horena waa inii siinay garad علي خليفة كلاي رئيس الوزراء ماليسي وحده gobonnimo iyo dawladnimo iyo Soomaaliya koonfuri waqooyi labadii dawlad ay iska yimaadeen bahasho xagga ka timaaday haddana sidii baan taaganahay insha Allah taala soo dhawaaw musharax madaxweyne dadkaas baan nahay Soomaaliya oo dhan dawladnimo gobonnimo sharafnimo waxaan ugu baaqaynaa midnimo islaamnimo wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مشرح مدحوين بشير صلادينتا ملاغيضة سياسيينتا برلمانكا بروفيسورada bulshada oo dhan marti sharafta waxaan ku salaamayaa سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت مركان كبدو أنت أنا ذلول هذا الكوكلين وأنت على إنه تشوفه إيمانك فرد الله كيوت تجي ونصيب ضخو وحيل أبال بانو هذا السيناي أبال كونفور النسيسي ما ترى وحان لهين بانو مر وحير كقادنا وحير آن لهين بانو وحير كقادنا واحد مودا هاشي ماندي قوينا كده حيسي إنا نمرتي كنا غناي ولا بهيس الوسارة محمد إبراهيم عقال إيو اللهم حريستي خليف كلاي بامد بمرقبتي واحد مودا إنا يتهي وحنا لسياد ونلو بريي لكن وحا اللودين إنا ينوح وضلينا هاي وحا ربنا أنو ما يهددك سودا وين يا مشرحة وحا هيددك حلك الدونية ومشرح متلا يان كمدها وحا ربنا إلى وقت إلا يسوسوا النقضي عرطة هل كان وحنو كاهين سوغي وحن سوغينا إن صومالي آنو يسوكينو آنو مدينو ودبار داينو أيان سوغيني ويسوكينا إله مهدي لكن ما أنت وادر دار مينا مشرح عصان وانا وحنو كوضنا هير وغوي وحنو كوضنا سومالي لان حتى دون إنسان من لماذا إنا يسون نغطو كاسا لغاضيا هذي يضمر السوشيغا سياسيين حلبانو مدحوين ايال قدوية برلمان بروفيسور ضلحة واحد نقاقار سيسار هير كونفورين ما انت انو كالقو اينا نهاية دون دنبايسي وين ودردارا وحلي وضي وحو عنانا ودوني وحو يراهدانا ودردارا هل اينو وضلين هل كوبي اللحدن سنو ماليسي ما انت سي مالي ميسان والله كتاي ابا كنت شرننا إنه على كرجاسة يلا ترنو تايلا بوركا كهفنو بوركا كهفنو وقراتا معنا أنو كحينو إيو إنا دورتان مدحوينها وأينو اسكسون نقولنا لبدا سيمتشوكتا كتشدا قفكا كوتشوغا هير كونفوريدا وكتشو عند إيدين صوب حدا وشيغا كوا مشرحين تحدى الدولة يا وشيغا
kuwa madaxweynayaasha u tartamaya u sheega ma qabanayaan codna siin mayno 80 xildhibaan baanu leenahay haddaanu reer waqooyi nahay hal qof naga codayn maayo hal qof haddaanu isaga la dooran waana tegaynaa salaamu calaykum waraxmatullah marka horena intu salaamay dhaqanka on lamba afkooganka weedow garaad malaaq suldaan wabar nabadoon islaam iyo intaan hilmaam lan walba magaashay iyo mansabshay ka salaamay may kala salaamay siyaasiyiinta anka horeeya professor dalx may salaamay gabdho sharafta leh xafladun qiimaha badan oo laka iritiri odayaasha dhaqanka anka horeeya garaadka ha ku qiib galeen isagana maysan lahaa intiinga ka salaamantiin bacdu salaam intaana doon galna my teacher in the hall macallinka aan ingiriiska hay baraya anta ka jara hoogi dheegahay usoo infasaxna madow akoor macallin yuusuf inaad infasaxna rabaa waa fasaxana soo maaha baaraka allah fiik ana sidayba mayka dowheeye magaaga aday bartay ama haga gaadiye disoo idoonana reewle kolayso markii aan ahaa nagada maadaama macallinkii fasaxi garaadka anta maha ku jeedisday su-aalna inay 3 qodob wal halnaysiyo salaadiin balana hadali anina jidkiyo mareen maray ma fantaraw laakiin su-aalo warsadee oo af maamay ka soo oo ka saareen maadiga ku warsaday garaad afaan ma taqaana ha insha Allah may faday master Jamal lamadius wal nagada dhaqanka hilmaamo waa masamadiis wal nagada lan dhaqanka meel ka ogaadaw intaas ay ku jawaabtay midaas daway kale barakallahu fiik waa kula qaadnay markaas daskii la qaadnay aan oo ka hadalaw magaca odayaasha dhaqanka gaar ahaan koonfur galbeed ahana afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Baay maylena master Jamal hooba wala usu weydiyo khayranka jara an du'aayane waana gaaban master Jamal bin aadan ka hoob wanaga afar shalbe lan ko hadda ka hor afar bilan oo kawaan iyaga oo isuna kawaan leeyahay hilba kadaay reed oo gooy kiili ben gooy widaada ma eray bakar soy tankala kiilisiye banin kari tankala kiilisiye bain kari tankala kiilisiye ban kari eray kin shabda kama dunduuna gaabiye tankar soy la raw walaasha iyada karsadaas madi wala waxa wali intii oo simad baharin toon la baasa awlaadi aw ka marag le aragay ma soo ma baragay tan ma heerti madum banin kari le raw hilibki dabka saarasa karyaasa aw ki awlaad iyab islaamayana ma sha Allah walaa war islaamay agabe tan oo in kari le raw walaa ya karyaas kala waas maskalan kalaas awlaadi iyo siyaasad dogaleysiyaas toona madum dogan karyaas oo iyo karsaas awlaadan kalaas oo wada karyaas hoobanin wada karyaas haka dhawaayaan hadalkay gaabiye ana naftarkay dadku wala faraaq jaray laakiin xafada dhatay wala ana faraaq ma sheegada laakiin markii ballan qaaday hoob ilaahay odayaasha dhaqanka oo aan infiitada anjeeyay inta sheeni odayaalkii ergida xulaayeen oo xildhibaanada sheenayn odayaalkaas may ballan qaaday oo ilaahay karaan nagada 77 xildhibaan koonfur galbeed nus in aan sheeno koro bilaahay meewhe madi odayaalka ada foto garaab macnaa sawir la gala waana salaanto adiyo isla duwaada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xafladan qiimiga badan oo maanta halkaan inooga qarsoontay oo aan ku soo dhaweynayno ama ku maamuusayno murashax Bashiir Xaaji Cali Jamaal
bahda dhaqanka labada qaybood gar iyo guddoon siyaasiyiinta labada aqal inta ka joogta dhallinyarada iyo haweenka bulshada qaybaheeda kala duwan oo halkan maanta ku casuman. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib qiimo weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb gallo murashax Bashiir oo halkan inagu marti qaaday rabana inuu soo bandhigo ahdaafta iyo ujeedka uu ka leeyahay Soomaaliya inuu hoggaankeeda ka qayb qaato ama u tartamo. muhiimad weyn bay noo leedahay runtii in sida tan oo kale la isugu yimaado Soomaali meel kastoo ay joogto isugu timaado. fariinta ay meesha ka qaadaysaana ay noqoto sida kuwii hore aan u dhegaysanayno hadda garaadkii iyo imaamkii way wada hadleen oo inay wada shaqeeyaan bay ku wada hadleen. hore ay u wada shaqeeyeen haddana ay wada shaqeynayaan. annaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa maadaama aan u baahannahay dowladnimo, maadaama aan u baahannahay in dalku dhammaanba uu isku xirmo hal dowlad iyo hal qaran aan ka wada turjunno, dadka Soomaaliyeed ay heshiiyaan, isdhex maraan, wada ganacsadaan, dowladnimadeeda ka wada shaqeeyaan dowladnimadooda. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waa bogaadinaynaa. arrimaha uu soo bandhigay ee 5 qodobna waa 5 qodob ay u dhimanayso Soomaaliya. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo dowladnimada ay rabto in ay ka wada hadasho. hadda wax la haysto anigoo hadda waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah 30 sano beelbeel baa loo fadhiyaa. beelbeel baa loo fadhiyaa. beelbeelna waxba tari mayso. waxaa la rabaa wax la isku darsaday, dowladnimo la isku darsaday oo laga wada shaqeeyo, qof kastina uu kaalintiisa ka qaato. maxaa yeelay waxaan wadaagno baa yaal meesha. waxa keenaysu keenay baa yaal. baahida taal baa beenu ognahay. runtii aniga oo xuqaasha Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeedba ka mid oo metelaya, waxaan leeyahay maanta qofka shakhsiga imaanaya waa muhiim in la tuujiyo, meelo badan laga eego, midnimada iyo wadajirka iyo istiqraarka dalkana runtii lagu doorto. dalkeenu wuxuu u baahan yahay in sidaas oo kale aynu u wada soconno. maanta cid Soomaali ka maqan dhaqan iyo aqoon-yahan iyo kulliba meesha waa wada fadhinaa noocyada bulshada. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waa soo dhaweynayaa, si gaaraan ugu mahadcelinayaa murashaxa. waxaan leenahay waa ku garab taaganahay insha Allahu tacaala. fariintan la dirayna way tegaysaa. ummadda aad khayr u tahay ilaahay inuu kuu sakhiro. hadduuna khayr ku ahayn oodan ummadda khayr u ahayna ilaahay ha kaa manciyo. ducadaa siyaasiyiintu waa necebyihiin horta, waa ducada ugu fiican. intaa kadib waxaan idin sheegayaa in dhaweytaadii gabay jawaabteedii maansada waa ninkii iska joojiyey. ninkii aan jeclaa iyo mar hadduu jabaa yimid jarxeeda aan furo. Soomaaliya jirrabaley wax dhan baan jujuugnay. jab iyo halaag iyo horac baan ku soo jirnay. jeer dushaan ka furan baan ku jirnaa dhammaanteen. jaarkaan afgood iyo jawhartana ma gaarno. jidadkiina wada xiran, xamar waad u jeedaan oo dhagaxbaa ku wada jaran. hadba ninkaan jahayno jagadaa u dhiibnana isagaa jugaysta. markuu jeerka buuxsaduu keligii la jeestaa dadkii oo jugin buhay. jawaabtaas ma beelba? jaliilkiina uuntaa jabaal maanta keenay jacaylkiisa kuma iman. Soomaaliya jirrabaley joojiya wixii hore. asagaa jahayno jidka fiican marino naga saari jiirtee
jiilkeenna soo kacay ya war jamaal aan doorano jawaabtaa ma yeesheen haadiinu waa yarta war jawaabtaa ma yeesheen afartan jideeyay jawaab kala aan raacay dalkeennaa la kala jaray jifa loo kala degay jabadaa hargeysiyo muqdishadana joognu isu jiidi doonaa geesi jirana weeyaan joorada iyo muuqiyo jaahaad ka garataan geesi jiran inuu yahay waxaad bakaan jahayno tagadaa u dhiibdana asagaa jugaysto markuu jeebka buuxsadu keligii la jeestaa dadkii oo jidii go-ay asagaa jahaynoo jiirtana naga saari jiirto jidka fiican mariniye war jamaal aan doorano afartan jaheeyaya jawaab kala aan raaciya jamaalow dhegayso jeerkaan ogeyn ee qarigeenni jabay iyo maantada aan joogno dadkii soo jiraynkaa jiitoo dhammaadoo aakhiray u jeesteen jir yar baa ka soo haro jabjab oo naafa ya afkii tuuga wada gabay dowladdeenna joogtana jir dhaxa ha joogtay nama soo jalleecaan jiliilkaan baryaynaa jagaduu ku geyniye jidka noo furmaano jidka noo furmaano soomaalay jirabalay joojiya wixii hore maanta labayna joogtaa naartii jaxiimiya jannadii ilaahay midun aanu joogsan labadaasi joogtaa war jamaal aan dooran isagaa jahaynoo jidka fiican mariniye intaas horta waa geeraarkaas yar jamaal baan kusoo dhaweynayaa waxaanse idiin sheegayaa dadkiina reer koonfureed oo waddanka midnaan marin anigu 2010 baan anigoo reer Ethiopia jigjiga jaad ka soo qaado waxaan soo maray Togwa Jaale Hargeysa Burco waa soo wareeg gooray tahay 11 saac oo maalmeed yaan markaan u soo jira magaalada Buuhoodle in yar u soo jiro yaa waxaa arka calanka Soomaaliya meel ka taagan anigu jaadka raaci baan ka nin reer Hargeysa gaari uu wada markaas waxaan macalankii baa ha jooji baa soo maxaa dhacay sana asalaam jooji soo nacalaadi calankaaga ku yaal gaarigu waa for nafsi saadu gaariga u dhaqaaqa taayir horbood ilaahay baa iga sareeyay bow wa inna lagu qarxay bood nacalaadi gaarigaaga ku yaal baa la intay kadib markaas calankii salaam ya marka calankii salaam iska hor fariisto iska ooy ilaa waxay igu dambeysay 19 magarad meesha Buuhoodle la yiraahdo ilaa hadda waa ka taagay calankii ma baantay calankii labaad oo aan arkana waxay igu xigay magaalada Gurceel la yiraahdo dalka inta dhan Gurceel baan weyn walaalayaal waxay doonaysaa ya maanta ninka biriishka isku xiri kara sool weeye biriishka horta dalkeen Cabdirasaaq wuxuu ku galay doorashadii hadda golaha wakiilada wuxuu ku galay gobolka Sool iyo Soomaaliland ana isku soo xiri kara taasa lagu qaatay Soomaaliland iyo soo koonfurna waxa isu keeni kara waa Jamaal wallahi inta musharaxa nin madaxweynaha kale isu keeni kara ninkan ba isu keeni kara markuu isu keena ka qaadan hadaa rabne ilma reer koonfur maanta aan dooran ninka dhagiina fara markuu isu keeno oo dalka mideeyo la waqti tira badan ay ka qaadanne oo aanu sidii yeeyay ku kacay ilaa inuu maanta jalaal dooran soo dalka isugu keeno ya jalaal mid baan ku wada dardaarmaya gay waxaynu joognaa gulf iyo colaad badan gay waxaynu joognaa gaajo iyo oon iyo gabadana ku badan tahay gay waxaynu joognaa guuliha abuurtay ku galaday nimcada gees walba ay taalo madaxan galaan iyo wabiyada gufaacada gidigeen inagu filan dadkiisaan garanay gaygeena saasa ninkii gelin lahaa guntiga u xiran lahaa guriga sama ku furin lahaa ya geesigaas weeye u gardaaja maanta xilka guudka u saar warintaa ma garatee hadda maanta inala gudboonta ninkii hasho ka luntay wixii yiraankeeda gudaalay aan markay halkaa maraysa yaa yaxyigaan war jooga maanta inala gudboontahay war maanta inala gudboontahay xaq waa reer waqooyi xaq waa xagga dhan walba waayahay war waa biriishki dhankeennana waa ka go-aya biriishka xaggaasu ka xidhay xaggaa waa ka xidhaya anaa idiin ruba Soomaaliland xaggeeda waa ka xidhaya biriishki haddii kii dhirkeenni waa go-an yahay asagaa dhisi doona ilmaada reer nala qaata hadalkii waa badiyey iga raalli ahaada jamaalow waa ku soo dhaweynaynaa anigu xildhibaanna ma doorto oday suldaanna melihi xildhibaan ma soo qoro laakiin ilaahay waxaa jirta asagaa qahaare inuu kuu kahre
midda kale Soomaalay waalid baan idin wadahay aniga bedel maxay waalid idinku ah dir iyo daaro digil iyo mirifli hawiyo waalid baan idin haddaad waalidka ku xasuusan kaar baa kugu dhacay dowladdiina baan u sheekhaana waalid baan idin diinta waalid idinku diinta waalidka idinku ila qaatan ninkaas farna xag kuma taagin hay ku caasi garoobina xildhibaanada soo socdo haddaan caasi garoodaan dhulka Allah idinla tar warka ila qaat wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadasha joogta ee magacyada kala duwan iyo masabiida kala duwan leh uu ugu horeeyo murashax madaxweyne Masar Bashiir Xaaji Cali iyo garaadku qof kasta waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo masabkiisa waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa dabad waxaan rabaa inaan idhaahdo oo soo koobo Soomaalidu xulashada hoggaanka dhowr qodob oo masiibo ku ahaa baa jiray oo ka mid tahay in la yidhaahdo waa reer hebel la doorto oo ay ka mid tahay muxuu ahaa ama ahaan jiraan la dhihin la yidhaahdo wuxuu yidhi waxaasaan samaynayaa hala doorto oo ay ka mid tahay in lagu doorto waxaasuu bixinayaa oo kale lagu doorto marka labo waa laga soo bogsoonayaa waa reer hebel waa laga soo bogsoonayaa nin inta asagu mashraxa yimaado la yidhaahdo waa qurbajoog waxaasaan qabanayaana waa yidhi laakiin muxuu soo qabtaan la dhihinna waa laga soo bogsoonayaayo qofka Soomaaliga ah meel kastoo uu joogo wixii uu ka ahaaba hadda la akhriya Jamaal waxaa ka sheekeeyey nin saaxiibkiisa oo aqoon dheer u leh laakiin runtii anuu kanu sheegay anuu markaan inta imid horay maanan aqoon wejigiisa maanta igu hora inta ninkaasi ka sheegayna waan haystay inuu yahay oo ah inuu ahaa hoggaamiye Soomaalinimo wax ku hoggaamiya hadday tahay meeshii uu joogay iyo bulshadii Soomaaliyeed ku noolay iyo hadday tahay gudaha Soomaaliya iyo waxqabadkeeda iyo waxtarkeedaba inuu hoggaamiye Soomaaliya ah hoggaankuna waa wax Ilaahay qofka ku karaameeyo in xilka loo dhiibay inuu wax bartaan oo wax soo kordho laakiin haybadda hoggaanimadu waa karaamo Ilaahay bixiyo nin haybad hoggaamiyenimo oo Ilaahay bixiyey leh Soomaalinimona ugu adeegay inuu yahay baan haysanay waxaan leenahay marka intaa lagu tixgeliyo hana lagu doorto aniguna kalsoonida waan siiyey Soomaalida kalena waan kula talinayaa in qofku la yidhaahdo muxuu ahaa ninkii isagoo maanay u haysan Soomaalinimo wax ku hoggaamiyey hadday tahay horumarinta dalka iyo hadday tahay bulshadii Soomaaliyeed oo kula noolaa qurbaha badbaadadooda iyo waxqabadkooda iyo isku duubnaashahoodaba haddii wax loo dhiibtana wuu astaahilaa karaamada Ilaahay ku karaamiyey aan uga faa'iidaysano codkeennana aan siino iyo kalsoonideenna intaasaan ku talinaya anigu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta wasiirada nafta siyaasiyiinta kuwa xildhibaanada siyaasiyiinta kamid dhammaan waa idin salaamaya haweenka sharafta leh waan salaamaya salaam kadib halkan waxaa loo yeelay in musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali la yidhaahdo in oo musharax madaxweyne uu yahay annagoo reer koonfur galbeed nahay shakhs ahaanteedii aqoon uma lihin laakiin faaladii la faaliyey intaan u soo oo taqaan faalisay ayaan muxuu ahaa ayaan qaadanaynaa annagoo reer koonfur aan nahay eebbarooga anoo ayaan dhahayna ru waaye nin musharax nagu jiro anaga kii oo haween idaarada usoo sharaxa ayaan garab siinaynaa isagana markii garab siino oo yacni aan codkeen u hela hadda Soomaali markii la yidhaahdo maamulada hadda dhisan dadka ugu xildhibaan badan ayaan anaga codka dadka laga rabo xoog badan anaga waay aqoonyahankeena xildhibaankay sharafta leh Dalxa maasha Allah walaalkay meesha fadhiyo yani og barakallahu fiikum ninka nooga hadlaa oo aad iyo aad meelaha uu nooga hadlo magacaas u hadla asaga ayaa u badnaa Allah jazaakumullahu khayr Jamaalow ama Bashiirow haddaad fadhido aniga aqoonku malihi
sidii hore loo sheegay dadka oo yani muxuu ahaa isbedel u sheegay jaabkii anaa buuxsan bal doorta ilaahay ka ogaado sidii ugu faaliyey garaadkaada sheegay ama ninka saaxiibkaada sheegay ama intii oo ku taqaanashay ay fiicnaanta ay kugu sheegan lagaa helo odayaasha dhaqankana nimanka oo arrintan oo wax laga rabo ayaga ilaahay baa wax laga rabo laakiin ayagu waayo oo inay wax soo dumaan oo ninka soo qoraa in dhahaan ama ninkaas wada ninkaas doorta waan kuu duceyna inaad ilaahdo uluma qaaday ninka haddii marna doorta akhtiyaar u leeyahy ama madaxweyne sun haddii mar doorto marka dalka u qabtona asna akhtiyaar u leeyahy marka waxaan qabnaa insha allahu tacaala aan soo jeedinayaa in odayaasha dhaqanka sida ay loo raadinayo oo dadka aad ogtihiin in dadkaas haddii ilaahay kaa guuriyo la badbaadiyo iyo laftoo meelaha aan dhibaato loo gaarsin waa kaa codsanaya odayaashaas wax kale uma joogaan ayaga ninkii soo qoraan ama qoraan dadka soo diyaaran unba u joogaan wax kale uma joogaan mushaar lama siiyo hortaada mushaar lama siin dejin lama siin odayaasha lagama fikirin insha allahu tacaala waxaan rajeynaya in odayaasha ka fikiradooda insha allahu tacaala waana ku soo dhaweynayna anagu reer koonfur galbeed malaaqeena ayaa noo hadlay khayr alla siiyo ayagan saan la qabnaa waa ku soo dhaweynaynaa laakiin dadka cadaaladii lagaa sheegay ha laga helo halagaa helo yaysan noqonan maanta waa hele bal dadkayga xaggiisa umadana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxyaanka ilawey wax kale ma aha ugaas bedel ama wuxuu yidhi khayraasi waalidkiina ahay waalidka anaa ka weyn runtiis waaye waalid waa isaga laakiin anaa ka weyn anaa sharaafa asiga daba socodkay waay maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi كيف وحنا هاي ريجن ناشونال سومالي وحنا هاي نيكا اوك وحقوا هرداي مرعها او وهبري كو وحريش الدويسي بشير حاجة علي إلى مدحوين نيغو محال كليني هنا شعبنا ودور الشارع أنا كوكو أنا كوكو بشير حاج علي هنا مدحوين ناخذ أنا كوكو يا كهبل عندنا أنا وحنا هاي نيكا أو فنانكا كوين وحني وين دليسة ها دليس يو محمد محررة ما كي هوري فنانيتي هوري باكوغي لا والله هوري راتب اللوغيا وأدعي وأدعيني شعبك أردن سومالي أنا كسر أخوي وسلامتين أنا أفتكر بكرين عدي لا يرادو مدة النسوقيني وحبة ساداليني سبدا بشير حاج علي جمال ضلكنا وصحل بحو صوماليا ساكقول أقوياها ساتركين علمي سد وسيئو سامي كله عالم كي إنو يهي والا صحي سياسة معلم كذا أسرع سمعتي هوريو سوعدين يا هيودي صومالي هانجرتو سد يلعق عن ربينه عد كينا سيرينا سارينا مدحوينه سوكيه لك الدليو تدكي استرساقيبو سيدو كومي دايلها أسرع سلوكيدو يهي صغير إذا الكبير شعبي ويسركعين وحي صدر واقعيان سلام مدحوينه هو إلا وحن راعينا انت ناسو اسكو فكرنا واسكو موقفه إلى هينا كعمو السيريا انت ناس قدان عناي وحن كنت علينا إلى دورنو بشير وكاسر ولقيت هذا اللي كان كوا كرم ماما ما ستي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan u malaynayaa hadalka waa
وأنا وذا يريد وحن سلامة يا مرلبات قال جامعة قال علي يسميها كلا نبكة وشرح مدحوينها وشير حاج علي يا قريبة الدولة ده أخوي هندا عيد كستو مصر كستو يكون فريدو وحكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa inaan soo koobo waayo dadku in badan buu fadhiyey waxaan u malaynayaa maanta waxaa jira fil jaaniskaasi markooba sidaynu uga faa'iidaysanaa waktigii lixdii calanka la keenay waxaa keenay oo hormuud ka ahaa garaad cali waa ragga hormuudka ku ahaa ee calanka keenay inay ummadda Soomaaliyeed heer gaadho oo mid noqoto oo ay maamuuska garanayna ay yeelato raggii u sababta ahaa ka mid buu ahaa maantana waxaanu keenay musharax madaxweyne haddana waagii calanka keenay hadda waxaan wadnaa madaxweynihii waxaan u malaynayaa halkaa jaalis baa ku jira ummadda Soomaaliyeed ee aan imika halkii lagu soo koobi karin waaqayla ku sugan tahay laakiin waxaan leeyahay ilaahay hayna garansiiyo inaynu ka faa'iidaysano sababtoo ay tahay anigaan wax badan ka faahfaahinay waynu wada fahmaynaa waa wada garanaynaa gobollada uu ka soo jeedo waa waqooyi gobollada waqooyi oo lagu xanto Soomaalidiin qolada koonfurta odhan jirtay hadda waxaa socdaa madaxweynihii waanu wadnaa mar haddaynu madaxweyne wadno waagii horena waa ogeedano calanka annagaa keenay waxaan leeyahay maanta waa fil jaaniska aynu ka faa'iidaysano siday ismiyada hore sheegeen ee ragga hore sheegeen waxaan u malaynayaa in badan baa dee rag madaxweyneyaal la soo maray maanta hadduu jaaniskaasi jiro waxaan leeyahay qolada kale ee madaxweyneyaasha qaranka Soomaaliyeed soo maray iyo kuwa kale u taaganba fadlan nooga sikada maanta jaanis baa sidnaa jaaniska iyagana waxbaa laga arkay haraa loo arkay waa lagu faa'iiday ummaddu heer bay ku gaadhay ma faahfaahinayo imika waxaan leeyahay maanta halkaa jaanis baa jira jaaniska ummadda Soomaaliyeed ha ka faa'iidaysato waxaan leenahay ismiyadu meel kasta ay joogaan ama bahda dhaqanka ragga soo xulaya annaga iyo ragga kale aan axbaabta nahay waxaan leenahay marka xildhibaanada la soo xulayo ha lagula dardaarmo codkeenu iyo Jamaal Xaaji Cali taa ha lagula dardaarmo taasaan farayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkan cid kastoo ka soo qayb gashay wasiirada iyo Professor Dalxa rag hadal culus baa jooga waqtiguna waa kooban yahay waxaan leenahay mar labaad iyo mar koobaad idinka codsanaynaa Jamaal Xaaji Cali nolola soo saaro madaxweynaha jaanis ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku jira hawsha hawasa loo eego yaan la ilduufin aad iyo aadna wadiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iskale mar labaad maanta runtii waxay tahay maalin aad u qiimo badan sababtoo ah kolley anigu halkan siyaasadii midna uma imaan waxaan u imi shakhsi aan aqaan oo meel aan ka wada nimi oo meeshaan marka aan sheegayo waa Canada waxaan ahaa ninka ka markhaati kacaya hadday deeq gargarato xataa aan ku qabsan karo waa aniga marka Jamaal runtii maaha markii u horreysay ummadda Soomaaliyeed siraa waxtar intii maamul goboleed la dhisayay iyo intii abaari jireen iyo intii cudurri jireen waxaan xustaa Jamaal oo socda anu Bashiir iyo Xaaji Cali Jamaal baanu ka jecelahay aanu naqaanaa mar walba u istaagi jiray marka waxaan xusuustaa runtii haddaan nahay dadka qurbaha ku nool gaar ahaan Canada ku wada noolaan jirnay wuxuu ahaa hormood intii lagu sifeeyay runtii nin istaahilo weeyaan waa in waqtigiisa oo dhan Soomaali geliyay aanan u kala socnayn maanta runtii loo abaalguday
mar haddii wejigan qurux badan oo Soomaali oo kala duwan oo qolo walba leh oo siyaasiyiin iyo isimo iyo culamo diin iyo qolo walba halkan ay soo istaageen ama xafladda ka soo qayb galeen anigu marka waxaan leeyahay saacadan oo kaleeto waa markay ugu adag tahay waayo raggu nin walba wuxuu jecel yahay iyo gabdhahaba in maxay ahayd warka la soo koobo oo waxaan leeyahay waa waqtigii qadada marka anigu waxaan warka ku soo koobayaa anoo jeclaan aad u hadlo waxaan arkayay mar haddii la soo talaabso dhinaca galusoo istaaga waxaan warka soo koob Jamaal waxaan ku leeyahay soo dhawow anigu waxaan ahaa raggii markii dalka ay xaggaa ka soo tegayaan kolley waqti dhow baan ka soo tegayo waqtiguna wuxuu ahaa 2004 baan anigu halkan ku soo biiray waa iska un wax waqti aan saa u sii fogeyn baan maray 2004 dadka dambe oo hadda socda runtii Jamaal wuxuu ahaa raggii markii anigu aan halkan imaanay raggii soo dhoofiyay oo soo diray dalkii balka wardoon buu ahaa marka Jamaal oo dalkii aad noo soo dirteen oo taraaheen ka wardoon intaa waynu ku simeynay soo dhawaadaan in leenahay kaalintii laga rabayna runtii waa taagan tahay waa kugu soo dhaweynaynaa tan kale oo ku sii darsanaan waxay tahay Jamaal ilaah baa wax baxsha aan kulligan hadda sidaan la jecelahay ilaahay hal la garto laakiin wax kasta oo bani aadamku labadaba in la isaaraa fiican waxaan jeclaan lahaa Jamaal wixii maanta ka dambeeya inuu dalka baaqi ku noqdo anoo og Edmonton iyo Canada inaanay iyo Ontario iyo Alberta intaba aan ka maarmin waxa ka sii weyn Soomaali baa ka sii weyn marka waxaan leeyahay kaalinta aad u baxday weliga aad tananistay jaalida u sameeysay marka waa talaabad hor u qaaday weeyaan anigu inta qura aan maanta leeyahay waa soo dhaweynayaa waa maxay ahayd aad baa loo hadlay nin baanu saaxiibnahay iyo bedel la yiraahdo abwaano halkan fadhiya aad buu u taataabtay qolada waqooyigana mar walba waxaa la yiraahaa xogaa tabasho badan baa jirta runtii waxaad moodaa inaanu jecel lahay bahashii wixii hadda ka dambeeya in bahasha hadda la xisaabtamo oo la arko laakiin wixii naloo qiray oo waqooyi ahaan la yiri hal la siiyo kelmad baa mar naga daba tuuray maaqaasi looga daba tuuray waxa la ahaa kale waxba ay dhiibeen la huwa ka qaadanayna waa ka fara badan waa waxa la isku haystay kamid tahay wax badan iyo wax yar laba garanayo waa waxa intii hore ku tagteen oo la tagteen marka bal haddaad wax bixinaysaan badnaashaha iyo reeba oo ogolaada wixii israacsada intaasna waxa iga tahay xoogaa kaftanka raacsanaya maanta haddii garaadku joogo garajaamac waxaan leeyahay kelmadiisii waa yiri dee kulligeen halkaas ay nooga dhantahay kelmad kale waan ka daba oranaynaa ma jirto laakiin kelmadda laga caddeeyey oo meesha jirta waxay tahay dhagaha aan furno Soomaaliya haddii la rabo in maxay ahayd la isku hayana waxa jira dad deegaankaas wada degan oo ilaa maalintii wax la sheegayay ha noqdeen ilaa iyo muxuu ahaa deegaan walba oo ceergaaba ha noqoto buuhoodle ha noqoto laascaanood waxay u baahan tahay waxtarkoodu waa wax Soomaalida isku haya laakiin inta badan waxaad moodaa markii xafladahan la isku yimaado baa la hadal haya laakiin markii wax la qaybsanayo waa yar tahay sababta ku yartahay waxa weeyaan madaxweyne hadday noqoto hadday ra'iisul wasaare noqoto hadday noqoto taliyaal ciidan hadday noqoto wax kasta ay noqoto aniga in la hadlayo waxa la xisaabiyaa inaan koonfur ahay oo aan intaa ka soo jeedo laakiin waxay u baahan tahay bahashi dib haddii wax la isku ogol yahay si ummadda kale maqana loo qanacsiyo inaynu kulligeen wixii yaalla halka aan dhexda dhigano ragga la filayo inay wax ka qabtaana waa Jamaal iyo rag lamid ah anigu waxaan ku soo koobayaa maadaama saacad dambe loo dhiibay rag badan oo jecelahay inay hadlaan waa jireenoo nin la yiraahdo xareedo halka dambe fadhiya oo aan filayo inuu meel badan matalayo sababta rag badan oo sida Jamaal oo kale senator rag raadsaday iyo xildhibaano ayaa inala fadhiya oo codkooduna fiicnaa in ugu soo gudbiyaan marka haddaan siyaasiyiinta nahay inagu wixii abwaanimadeeda iyo sheekadeeda iyo kaftankeeda iyo koonfur iyo waqooyi intaba talxaan u daynaynaa isaga naga wakiila isagaan leenahay talxow waxbaha u reebay maanta wixii ilaahay ku baray maanta halkaas aan kugu ognahay waxaan leeyahay Jamaal soo dhawow dadka ka timiyo
edmonton joogay oo rag fara badan aan ka garanay cawil iyo maanta waa ku wada daawanayaan waxay leeyihiin ninkii jamaal ahaa ma yahay ninkaanu dirsannay waxaan leenahay dadkii soo dirsado waaynu ka gudaynay waana haynaa meeshii aad la rabteen insha allah annagu ilaah u baryanana waa la gaarsiin doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta arrin cajaa'ib weeye waxaan salaam u soo jeedinayaa dadka halkan maanta lagu martiqaaday ee rag iyo dumarba leh halkaan rag badan baa hortayda ka hadlay gabdhaha ma aysan sheegin gabdhuhuna mudnaan weyn bay leeyihiin soomaaliya marka maanta la eego rag iyo dumarba halkaan waa loo fadhiyaa raggii soo martiqaadayna runtii ammaan baan u soo jeedinayaa abaabulka intaa la eg sameeyey oo dadkaas oo dhaqankii iyo siyaasiyiintii iyo gabdhihii iyo wixii oo dhan ay u dhan yihiin inta soo abaabulay maanta arrintaa isugu keenay salaam baan u soo jeedinayaa waxaan kaloo salaam u soo jeedinayaa runtii musharaxa madaxweynaha oo dadkiisii shacabka ahaa waxgaradkoodii iyo waxoodii intoo abaabushay arrintiisa u soo bandhigaya isagana salaam baan u soo jeedinayaa dhammaan waxaan leeyahay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aniga waxbaan dareensanahay dadka iyaga halkaa joogaa ma ogi hadda qof iyo laba ka soo bixi doonaa ma aanu ihin xildhibaano ma nihin aqal sare waxaanu nahay odayiin iyo siyaasiyiin daashay iyo odayaal baanu nahay marka dadkii wax dooranahayay ma aanu nihin anigu runtii ra'yigayaga inaanu kuu gudbinno oo inaanu annagu raalli kaa nahay aanu caddayno waa arrin muhiima adna waxa kuu tarto dadka shacabka oo soomaaliyeed oo dhan maqlahayaana ha dhegaysteen laakiin waxaan rabaa inaan arrin marka hadda soomaaliya laga hadlahayo waxyaabaha soo baxay dibaddana waad u badnayd gudahana waad joogtay inaan tilmaan yar bixiyo soomaaliya hadda waxaa lagu qiimeeyaa garasho ku xisaabtankii waa ka dhumay maqal ku xisaabtankiina waa ka dhumay arag ku xisaabtankiina waa ka dhumay waxa u soo haray qabiil iyo lacag waxa mabda ah oo kale oo nin soomaaliya oo maanta jooga siyaasi ha noqdo magaciisi ha noqdo waxa lagu shaqaynaya waxay noqotay qabiil iyo lacag waana waxa laga dhaqaaqi waayo weeye inaad intaas adiguna aad sii ogaataan arrin muhiima weeye qabiil iyo lacag waa waxa la isugu imaan waayeen wax u hagaagi waayeen arrintaasaa meesha ku soo hartay xigmad kale oo maanta taalla soomaaliya ma ay jirto waxbaa qiyaas kuu shaqaynaya waxaa la yidhi hala sameeyo axsaab si loo galo tartan xora 105 106 bay gaareen dal hawooya tiradooda intay gaareen 105 106 xisbi dal intaa leeg intaa inay gaaraan waxaa keenaya qabiil baa loo fakaraya nin walba reerkiisii iyo isu soo taagayaa leeyahay xisbi baa samaynaya hadda maanta waxay maraysaa musharaxiinta madaxweynuhu 25 ma 26 inta ay marayaan bay maraysaa waxyaabaha adduunku marka ku dhaqmo iyo loojikada jirta Soomaaliya way ka baxday dhaqan kale ay taagan tahay annaga waxaan leenahay runtii waxyaabo waxa jira ninku markuu dhameeyo shuruudda ku qoran dastuurka dalka ee ku meel gaarka ah markaasuu musharax madaxweyne yahay inta ka horeysa waa tilmaan shuruuduhu waa qoran yihiin shuruudaha waxaa la soo marsiinayaa guddiga doorashada qaranka markay shuruudaha ansixiyaan ayaa musharax kaar la siiyaa la yidhaahdaa madaxweyne musharax ninkaas ah hadda waxaa jira 5 bilood ka hor dad sawiradoodii iyo waxoodii meel walba ku dhagan yihiin oo musharaxiin ah mana marin systemkii sharciga lama marinin annagu waxaanu dhahay raggii waxaan ku jiray aeroboortka kugu soo dhaweeyey ragga haatan maanta halka joogana waa ku jiraa qalbi wanaagsan baan ku haynaa dambi inaad gashay oo dalka Soomaaliya ka gashay kuma hayno inaad wax garanayn kuma hayno inaad Soomaalinimada neceb tahay kuma hayno ilaa qofka waxa lagu dooranayaa waxay tahay in la qiimeeyo marka la qiimeeyo dadku dooranaya annagu intaas midna kuma hayno marka waxaan kugu soo dhaweynaynaa xaq baad u leedahay waad mudan tahay inaad isu soo taagto u tartanto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed xukunkana Ilaahay baa iska leh qof bini aadan go'aan ma qaadan karo Ilaahay baa xukunka iska leh dadka Soomaaliyeed haatan maantayto in la soo doorto la sugayo walwal baaba naga haya si loo soo dooran lahaa walwal naga haya runtii markay tahay laakiin dadka Soomaaliyeed in la soo doorto laga rabana inay aqli noocaas dadka ku soo xushaan ama ku soo sameeyaan oo iska daayaan lacag iyo qabiil ayagana intaas aan u soo jeedinaynaa adigana Ilaaha ku guuleeyo
wixii xunna allah kaa faydo wixii xalaalana allah kugu aadiyo intaasaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabdhaha iyo saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii war badani ma harin warkan nuxurkiisii waa la sheegay mudane musharax madaxweyne waxaa leeyahay mushaacadu markhaati way gashaa intii ku taqiinay hadday ammaan iyo wanaag kugu tilmaantay annaguna waa ku gowracannahay waana la qaadanaynaa aniga magacaaga iyo muuqaaga mar horaa waxa ay baray ninka la yidhaahdo deeq gargareeto adigoon ka imaan Canada asaga laftiisu markaas Canada uu joogay inaad musharax tahay soo socdana waan ka warhayay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego anu kolley hadda reer galmudug baa matalaya galmudug maanta anaa magacooda ku hadlaya han baa nagu jira kursiga madaxweynaha ah waxba kuu dhibi mayna waa iskaashanaynaa haddii ilaahay halkaas ayaa noo ballanaa iyo iskaashi waad mudan tahay reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn halganka Soomaalida magac weyn bay ku leeyihiin waxaan rajaynaynaa Soomaaliya meesha ay maanta marayso haddaad ku guulaysatid magacii iyo taariikhdii mahadada ahayd ee wayaasha ay reebeen inaad mid lamid ah adiguna samayn doontid anoo waqtiga ku xisaabtamaya soo dhawow mudane musharax waan isgarabsanaynaa haddii ilaahay idmo Soomaaliya waxay u baahan tahay gacan midaysan iyo niyad midaysan iyo daacadnimo waxaa kaloo noo ballana intii hore aan u soo tijaabinay inaan dib ugu laabanay wajiyo cusub aan doorano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dareenkiina isiiya biyaa idin hor yaalla waxaan filayaa energy yar oo aanan sheegaynin in hortiina yaallo attention isiiya بسم الله الرحمن الرحيم بشير حاج علي جمال وحاو كل شيء دقمدا بوهولة قبل كتقدر سنة كي يكون يسقال بقول يلحدنكي بشير حاج علي جمال وقت يسي عرور نمو وحقوقاتي إلا وحبرشدي سي مقالة مقدشو دوكسي هوسة وحاو كقبحي دوكسي هوسة كود اللوليو كن يسقال بقول يسيديتنكي بشير حاج علي جمال دوكسي سر وحقوق بحي لفولة مقالة مقدشو جامعة أمضى أيو سيفل إنجينيرين ديجري كقاتي سنة كمركوها كن يسقال بقول سيديتن يتضبطي جامعة أوتوا إدلك أمريكان كأيو ماستر ديجري كدياريي أو إديوكيشن كن يسقال بقول سقاشن يلحدي لبضا كن يتضبطي شهادة كبعنتا اسمها بولشدة أيو إسلا جامعة أوتوا إدلك كندا كقاتي لبضا كن يسيدي هرمرينتا يا عدالة قويسكا أيو إسلا جامعة أوتوا إدلك كندا كدياريي لبضا كن يسقالكي شهادة مارينتا يا مامور وناقة أيو دياريي لبضا كن يتضبطي طبنكي أكاديمية النبضة iyo booliska Edmonton Alberta dalka Canada ayuu ka qaatay shaqooyinkii uu Soomaaliya ka qabtay waxaad ogtihiin xilligii bariisamaadkii shaqada waxa lagu bilaabi jiray shaqo qaran mudane Bashiir Xaaji Cali Jamaal waxa uu noqday ciyaaryahan tenniska ciyaara 80 ilaa 86 player buu ahaa haddana waxaan rajaynayaa inuu noqdo ciyaaryahan siyaasadeed oo xirfadiisu aad iyo aad ay u sareyso waayahay barnaamijka shaqo qaran uu qaatay 88 ilaa 89 wuxuu macallin ka ahaa dugsiga sare ee farsamada gacanta Muqdisho wadanka Canada shaqooyinku ka qabtay waxa kamid ah wuxuu macallin ka ahaa magaalada Ottawa ee dalka Canada intii u dhaxaysay 93 ilaa 2000 2004 wuxuu musharax u ahaa shaqaale ka howlgala wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario Alberta dalka Canada 2006 wuxuu ka shaqeynayay iskuulka lagu tababaro shaqaalaha dawladda Canada muddo dheer oo ka soo bilaabmata sanadkii 99 ilaa hadda oo 2021 ah musharax Bashiir wuxuu hayay xilalka xoghayaha joogtada ah ee hay'adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga Iskeerdo oo xarunteedu yahay magaalada Edmonton ee dalka Canada haddaba Bashiir Xaaji Cali Jamaal waxbarashadiisii ka sheekaynay shaqo qaran ka sheekaynay ciyaaryahan inuu ahaa tenniska ka sheekaynay qurbaha iyo waxyaabaha bini'aadanimada iyo xuquuqul insaanka qabtay ka sheekaynay dalka muxuu ka qabtay waxyaabaha xuquuqul insaanka iyo bini'aadanimada ka dhaxeeya
wuxuu mashaariic badan oo samafal ah oo horumarineed uu musharax Bashiir Xaaji Cali Jamaal ka fuliyay degmooyin badan oo gobolada dalka ah oo ay ka mid yihiin mashruucii gurmadka degdega ahaa ee Qardho fatahaadihii Qardho 2020 mashruucii quudinta agoonta ee magaalada Baydhabo sanadkii 2019 waxaan rajaynayaa kelmadda aan akhrinayo waa kelmaddii ugu muhiimsanayd ee Bashiir Xaaji Cali Jamaal taariikh nololeedkiisii iyo shaqadiisii dareenkiina inaad isiseen ma rajaynaya markaan dhameeyo waxaan ku soo dhaweynayaa Professor Dalxa ayaa ku soo dhaweynaya musharaxa waaye Bashiir Xaaji Cali Jamaal wuxuu ka qayb qaatay mashruucii abaaraha iyo biyo-la'aanta magaalada Buuhoodle gobolka Cayn ama gobolka Togdheer Cayn waa garanaysaan waxa weeye laakiin waa gobolka Togdheer degmada Buuhoodle sidoo kale mashruucii gurmadkii macaluusha ayuu ka qayb qaatay fatahaadihii magaalada Beledweyne 2018 uu ka qayb qaatay mashruucii aadka u weynaa masiibadii qaraxii Soobe gargaarkii la sameeyay ayuu qayb ka ahaa 2017 musharax Bashiir Xaaji Cali Jamaal ilaahayna intii wax ku yaxyeeloobatay halkan baynu faatixada uga marinaynaa sidoo kale mashruucii abaarihii macaluushii gobolka Gado 2011 qayb ayuu ka ahaa mudane Bashiir Xaaji Cali Jamaal marka taariikhda waxaad ka garanaysaan gargaarka bini'aadanimada iyo dib u jeedinta inuu qayb weyn ka qaatay musharaxu wuxuu musharaxu qayb weyn ka qaatay wadada Ceeldaahir Ceergaabo oo haddana dhismaheedu socdo barnaamijka loo yaqaan qof iyo foosto sanadka 2020 mashruucii qodista riigga iyo hospitaalka Ceegaag degmada Ceegaag Buuhoodle 2006 ayuu ka qayb qaatay mashruuca gurmadka rugta dhalinyarada Burco 2004 ayuu ka qayb qaatay abaalmarintii uu musharax Bashiir ku guuleystay waxaa ka mid ahaa bilad lagu guddoonsiiyay dadka ugu mudan ee wax ku soo kordhiyay dalka Canada 150 sano oo sanad guuradii ka soo wareegtay sanadkii 2017 dalka Canada waxaad ogtihiin xornimadiisu waa 150 sano markasta oo loo dabaaldegayo waxay sameeyaan abaalmarino dalka ugu mudan ee wax soo kordhiyay marka dadkaas ayuu ka mid noqday mudane Bashiir sanadkii 2017 biladaasna uu haystaa wuxuu kaloo ka qayb qaatay mudane Bashiir Xaaji Cali Jamaal dhismaha wadada Hobyo ayuu ka qayb qaatay waayay bilad sharaf ay bixiso wasaaradda socdaalka iyo qaxoontiga ee jinsadaha Canada sanadkii 2013 halkii qof ee ku guuleystay ayuu ahaa mudane Bashiir Xaaji Cali Jamaal bilada dheemanta ee dadka ugu mudan dalalka barwaaqa sooranka oo ay bixiso boqorada Ingiriisku Queen Elizabeth ayuu ku guuleystay musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal sanadkii 2012 marka Bashiir waxa weeye shakhsi ay gaale iyo muslimba ay u mahadnaqeen haddaad maqashid qofka bilad baa la siiyay macnaha waxa weeye shaqo uu qabtay ayaa loogu abaalgudayaa marka Queen Elizabeth biladeedii ayuu gudoomay nabadoonnadii ayuu gudoomay iyo abwaaniintii iyo siyaasiyiintii waxaan rajaynaynaa xildhibaanada soo socdana inuu ka gudoomo mahadnaqa iyo abaalmarinta oo ay ku sharfaan kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya sanadka 2012 waxaan si kooban ku akhriyay taariikh nololeed aad u dheer mudane Bashiir Xaaji Cali Jamaal waxaan rabaa inaan xasuusiyo campaign-kii ugu horeeyay ee wadanka ku soo galay Bashiir xaguu ka bilaabay dhalinyaradu ka bilaabay hamoodina Bashiir inuu nabadoono kaliya soo keenay ciyaaru qabtay tartan dhaqan ayuu ku qabtay beerta nabadda magaalada Muqdisho daraato waxa uu ka qayb galay bandhiga bugaagta Banaadir oo ka socday Hotel Maida ee Dafino wuxuu ku deeqay 100 buug oo ugu deeqay maktabadaha wadanka mudane Bashiir markaa wuxuu ku dhex jiraa salaadiintii nabadoonnadii iyo aqoon-yahankii iyo abwaaniintii sidoo kale wuxuu ku dhex jiraa dhalinyaradii markaa dhex ayuu inoo yahay boqortooyooyinka Britain iyo Canada abaalmarinaha ay siiyeen waxay ku dhiirigelisay jaaliyadii Canada la joogtay ee Soomaaliyeed inay mudane Bashiir ku soo jeediyaan inuu xal u yahay in wax ka bedelka mustaqbalka dalka waana keentay inuu noqdo musharax madaxweyne aniga oo soo gabagabeynaya munaasabadan waxaan u yeelayaa oo aan rabaa si dareen miisaan la inaad ila soo dhaweysaan protokolka Professor Maxamed Cumar Dalxa kusime madaxweyne gudoomiye baarlamaan abwaan aqoon-yahan diblomaasi waxaan rabaa inaan dareemo soo dhaweynta Professor Dalxa inaan dareemo ayaan rabaa
inaan dareemo ayaan rabaa aad iyo aad u mahadsantihiin anugu barnaamijka waan ka dhex baxayaa professor dalxa ayaa kusoo dhaweynaya musharax madaxweyne bashiir xaaji cali jamaal dulqaadka aad noo samaysayna waad ku mahadsantihiin saxafi iyo qabanqaabada guddiga iyo brotokoolka saxaafadda haweenka dhammaan anigoo qaybta qabanqaabada afhayeenkoodii ku hadlayan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya dhammaan madaxda hogaamiye dhaqameedyada oo runtii garaad jaamac iyo inta sidaas oo kale matalaada guud ahaan beelaha Soomaaliyeed hoggaankoodii ah dhaqan ahaan sidaas oo kale guud ahaan siyaasiyiinta ka soo kala jeeda golayaasha dawladda aqalka sare golaha shacabka iyo xukuumadda guud ahaan siyaasiyiinta sidaas oo kale maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ee munaasabadan qiimaha leh soo sharaftay sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan aqoonyahanada ganacsatada culimaadudiinka haweenweynaha quruxda badan gabdhaha dhalinyarada bahda saxaafadda iyo ciidamada qalabka sida iyo amniga hoteelka saxafi ee hoteelada xaqiiqatan ugu mudnaanta badan marka loo fiiriyo waxgalka iyo waxqabadka ka sokow ee uu caanka ku yahay balse aan ku xusuusanayno inuu ka mid yahay hoteeladii farakotriska ahaa ee u dhabar adeegay intii dowladnimada baadigoobka loogu jiray ayna ahayd meelaha ay ku soo hiirato dowladdii timaadaba waan ku ammaanaynaa marxuumkii qiimaha lahaa cabdirashiidne isaga iyo intii kale ehel ahayd ama hoteelkan ka tirsaneed ee ay ku geeriyoodeen dhacdooyinkii murugada lahaa ee hadda maalin meel kaabanaysay ilaahayse waxaan uga rajaynaynaa isaga iyo intii lamidka ahaa inuu jannadii firdowska ahayd uu ka waraabiyo sidaa awgeed ii ogolaada inaan salaamta islaamka marka hore idin idhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xiga waxaan bogaadinayaa munaasabadan qiimaha leh oo maanta aan uga soo wada qayb galnay dhammaan murashax madaxweyne mustaqbalka u taagan walaalkeenna bashiir oo runtii qof waliba siduu u yaqaan iyo CV-giisaba ay dhagaha maanta ama ha ugu shubaano xiriirinta qaybtii ama in horey u taqaanay xaqiiqatan waxaa la qaybsanayaa macrifada qaar ay u leeyihiin dadka saaxiibyadiisii ahaa ama kuwa jidlamaray ha noqdaano ama kuwa jabad laxaari ha noqdaano laakiin aniga bahda waxbarashada ayaan saaxiib wadaag ka ahayn waxaana iyagoo jooga aan dalkaba dibaddiisa imaan xiriir uu ila sameeyey saaxiibkayga axmed ducaale oo runtii kolligayga kuliyaddii afafka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed inuu la soo runtii guurayo nin culus oo saaxiib waxbarasho oo asagana ka mid ahaa bahdii xilligaas 80meeyadii afartiiba aniga ka qalin jebiyay asigana 7dii laakiin rag aad wada garanaysaan ayaan isku wada tariinka waxbarasho saarnayn oo hadda qaarkood aad garan kartaan Yuusuf Garaad iyo Xarbi Cali Kulane kuliyadaas oo luqadaha iyo handasadaba kuwa inta fara badan aad moodid siyaasadda bariyahan in ay ku badan yihiin marka loo fiiriyo murashaxa madaxweyne waxaan u malaynayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumaddeena federaalka mudane maxamed xuseen rooble inay isla yihiin bahdii injineeriya ama kuliyadii handasa ama kuliyadii
marka xaqiiqatan sharaf bay noo tahay bahdii aqoonta iyo dadkii waddanka wax u soo bartay inay dib ugu soo laabtaan ayuu hamigooda u yahay inay wax ka bedelaan wadciga aan ku sugannahay ee maanta Soomaaliya u baahan in wax laga bedelo xaqiiqatan isbedelku dadba sibay u yaqaanaan isbedel qof lagu bedelo ma aha ama nin ama gabar ama haween waayo haddii cali uu baxo oo cabdi u yimaado iyo hadday caasho baxdo cambara ay timaado magacyo unbaa isbedelay laakiin wadciga iyo xaqiiqada ee ay tabayaan dadka Soomaaliyeed systemka jira iyo xaaladda dalka uu ku jiro yaa wax ka bedeli kara yaa wax ka qaban kara Soomaaliya tabasho fara badan baa jirta garnaqsiga odayaasha ayaa daliil u ah walaalihii halkan soo istaagay Somaliland tabashadeeda waa mid garabashiya leh ee halkan Sultan Hamid iyo raggii uu maanta uu ka soo jeedo murashaxa madaxweynaha iyo garaad jaamac iyo raggiisii kulli waxa ay maanta ay ku hadlayaan tabashadooda waa wax jira Soomaaliya 60kii ayaa dhibaatadii ka timid ayaa maantada weli ayada ay taagan tahay alifka xumaada waxa la yiri bakhra ayuu ka wareera ama alifka wareera al-bakhru ka xumaada haddii 60kii gobonimada markii la qaatay ee ay noqon lahayd mid cadaalad ku dhisan mid Soomaaliya oo dhan noqota wixii dadkii soo halgamay wixii ay ka mudan tahay qof waliba inuu meeshiisi yani inuu gobonimadaasi iyo midnimadaasi lagu dhaho sidan maanta lama noqdeen laakiin waxyaabihii dhacay wax cajiib leh bay ahayd sida wax loo qaybsaday awood qaybsiga siyaasad ha noqoto bulsho ha noqoto dhaqaale ha noqoto amni ha noqoto aad bay runtii u qaabdarnayd sababtoo ah magaaladan hadda ee cabashadeeda ee banaadir ee caasimadu ay tahay go'ashay taariikhdeedii hore maanta haddii dib loogu soo celiyo labada meelood ee hadda fariin gadaal laga soo dhiibay oo haddii la yiri Somaliland way garnaqsatay galmudugna way garnaqsatay bal koonfur galbeed iyo banaadir dalxow ka dabagay niman saaxiibayda gadaal fadhiya ayaa dhegta wax igu soo shubay sababtoo ah waxay yiraahdeen niman geesiyaal ah ayaa la tilmaamay oo xaqiiqatan aan ku taageersanahay Cabdullaahi Ciise geesi Soomaaliyeed SYL halgama weyn buu ahaa raggii Soomaaliland laga wada xusay kulli waxay ahaayeen the pioneers of this country dadkii oo waxay u ahaayeen geesiyaashii la soo diray Talyaanigii ama Ingiriiskii wax weyn dowrkoodii muuqda koonfur galbeed reer awkay way baabiyeen may jeylaan Abdulqaadir Sheekh Sakhauddin gudoomiyihii SYL Khaliif Huudow Macallin Abdulla Saalax xubin SYL hay Barbe xubin Khaliif Huudow iyo Sakhauddin reer Shabeellaha hoose isla haayeen Barbana buur ka wahay dheer xaaji dheer oo reer banaadir hay may dadkum in maylin hilmaamay sedsho oo ka ilaaliyay marka waxa waaye dulmiga waa la camimay dalka marka maadaama raggii reer Shabeellaha hoose ee ka buuxay SYL ilaa ayaga kuwii banaadir ku jiray ilaahay idinku dhaarshay maanta ma rumaysanaysaan Cabdiqaadir Sheekh Sakhauddin ee gudoomiyihii SYL ahaa caruurtiisoo baagamundo wada ah cadilan xamar jajab bay ku nool yihiin cadaalad darro ka xun jirta 15 Mayne feesto iyo kharash waxaan ku bixinaa waxaan la qiyaasi karin dheer xaaji dheer iyo Cabdiqaadir Sakhauddin wiil uu dhalay gacanta uu ka go'an yahay ayaa munaasabad sidaan oo kale annagoo fadhino ayaa xataa microphone-ka lagu xusin
oo la dhihi waayey gamayaashii carruurtoodana horta laysu dulqaato waddan min alif ilaa iyo ya khariban baan ku jirnaa oo cadaalad darro dilootay nin laashan ah oo reer afgooya u martiyey reer kale oo ehel ay yihiin reerkii lo'da oo xiran moorada way buuxdaa caanaha lo'da oo dhayda ah ayaa haamanka ku jirjira markaasaa markuu u martiyey ayaa waxaa la yidhi laashinka ha loo geeyo caano meeshii caanihii dhayda loogu geyn lahaa garoor ha loo geeyo oo dhannaan ah bahasha markii hortiisa lasoo dhigay kore u qaaday waa dhigay waa qaaday waa dhigay markii dambe wuxuu isku dayay inuu ka bado laakiin waa ka daadegi wey wuxuu yidhi kaalaya reerkii dadkii ehelka ahaabuu u yeeri wuxuu yidhi aniga waan iiga dhaaran lahaa laakiin dhalyaan dhabiila buu yidhi waan iiga dhaaran lahaa dhalyaan dhabiila dhaayaaba taale maxaa dhanaanka laysiiyo dhaashay dalkan wada dhayda ah haddii laysla wada dhamo maxaa diidaya maxaa qaarna dhanaanka loogu daldalaa qaarna dhayda u cabay marka saaxiibkayga murashax madaxweyne Bashiir CV-ga nin kastoo dhegaystina waa ku qancay nin kastoo ku yaqiinana waa ku qanceen aniga laftirkayga maanta imaatinka gocashada gobolada Sanaag bari kulli iyo dhammaan iyo waqooyi raggii ka yimid halkan Somaliland ay meesha fadhiyaan in meesha gocashada aan imaanayso inaysan meesha ka maqnayn waa laakiin saaxiibtinimo waxbarasho iyo xildhibaan meel iska dhig laakiin guddiga wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland anoo ka mid ah ayaan balgar naqsigan odayaasha inay reference marjaci noqoto inaan dhageystana waxay ahayd wax aan maanta danaynayo walaalihii gardara tirsanayo walaalihii xumaan tirsanayo kullayba garowshiyo waxaan filayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa hadda xilligan noogu protocol haddii aan nahay dowladda federaalka mar hadduu meel fagaara ah asigan uu ka yiri walaalahayna waqooyi gocasho iyo wixii ay tabanayaan waxaan ka bixinaynaa xaalkartaya marka annaga reer dhanaan cabab ay iska noqonay annagana xaalka waa ku jirnaa laakiin madaxweynow hoos u sii daadeg ninkaa maartay gadaashaada fadhiyo asiga tii ugu dambeeyey fariintiisaan kuu soo gudbinayaaye Soomaaliya waxay isloogan ahaan maanta meel u yaallaa saaxiibkayga laacibka Saciid Dorsheelna waa joogaa madax guddi qaranna waa yahay waxaa meel noo taalo xaq lama rabee xalaal la rabaa marka xaq darro xal lagu raadinayo adigana sidii aad ra'yigaaga arintaas ama u diidi lahayd ama ugu raaci lahayd islaamka ee madaxweynayaasheenii isdabagalay ay ku soo shaqaynayeen ayaan sugaynaa meel xaq darro taal xalka lagu raadinay aniga jawaab uma heli karin wassalaamu calaykum ku soo dhawow murashax madaxweyne darajada ilaaha bixiyo ummadaadan waa ku jeceshahay in allaha jamiilun yuhibbul jamaal ku soo dhawow bahda dhaqanka oo ugu horeeyo garaad jaamac garaad cali iyo dhammaan cuqaasha salaadiinta malaaqiyada gobolada mar labaad waxaan idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib ugu horeyn ilaah baa mahad wax la wadaagi karaa ilaahay ma jiraan mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan guddigii soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan ee aan ku shaacinayay musharaxnimadayda dalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan Cabdikariim Haybe iyo saaxiibkay deeq gargarato yaan u naqaanay anagu
aadan warsame cilmi marka la yidhaaho ma garano laakiin dalqil garato marka la yidhaaho waa waxbaana galaa iyo dhammaan tiimka ila socday iyo kuwa halkan iga soo horreeyey iyo dhammaan dadka soo sharfay xafladda quruxda badan waxaan kaloo mahad gaara u celinayaa hotel saxafi oo runtii halkan ay noogu horreyn sida ugu taagan yahay astaanta qaranka ummadda soomaaliyeed oo lagu soo hirto mid ka yimi ilaa raas casayr ilaa raas kaambooni xamar marka la soo aadayo waxaa la yidhaha saxafi ma ku degti marka waxaa xusi doonta taariikhda muhiimadda uu leeyahay dalka iyo dadka soomaaliyeed hoteelkan maanta joogno inta haddaan ka gudbo in muddaa la fadhiyey wax laala wixii la sheegi lahaa ee xigmad ahaa waa la sheegay marka anigu hadda inaan ku tunto ma rabo waxaan doonayaa inaan si kooban oo aan ka badnayn 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo kusoo koobo dalka wixii aan ku hogaamin lahaa haddii ilaahay ii idmo inaan madaxweyne ka noqdo way qoran yihiin iyaga oo maaragtay tafaatiran oo luqado badan ku qoran waan soo diyaariyey halkan dhabarkayga waxaa ka muuqda 5 qodob oo bandhig oo ah siyaasadayda aan dalka ku hogaamin doono haddii ilaahay ka dhigo number 1 siyaasadda aan dalka ku hogaamin doono marka hore waa mid daafuran oo la wada leeyahay oo sidan hadda aynu u wada fadhino loo leeyahay oo aan cidna laga lahayn ma noqon doonto siyaasad inta sidii odayaashii iga horreeyey ay sheegeen inaan halkan intaan ka urursado awooddii dalka inaan markaa filla soomaaliya intaan la gabo saan doono markaa ka yeelo ma dhici doonto taas kow marka anigu muddo aan ka shaqaynaya arrimaha bulshada center baan fadhiyey dadka soomaaliyeed meel kasta ha ka joogeen way ii imanayeen nooc kasta allah ka dhig jabuuti NFD gobolka soomaali galbeed iyo jamhuuriyadda inteeda kale way ii imanayeen ama waraaqo u qoro aqoonsiga ama tireerina aan siiyo iyo tababaro dadka soomaaliyeed waan u fiirsaday dadka soomaaliyeed waa dad walaalo ah waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa isku mid waa hal qoys oo tarmay taas ayaa ii soo baxday igu dhiirigelisayna inaan maanta isu taago hogaankooda inaan noqdo waxyaalaha soomaalidu ay leedahay ee aysan la wadaagin ummadda kale waxaa la mid ah waa dad isku mida marka hore oo isku dhaqan oo isku diina dalkan anigu hadda aan ku noolahay ee Canada intaa midna ma wadaagaan waana dalka adduunka ugu dowlad wadaaga wanaagsan weeye innaga oo hal dal ah oo hal dad ah oo hal jinsiyada oo maanta inteena halkaa fadhida aynu wax isu noqonayno inaynu maanta layna kala waardiyeeyo oo halkan ay inoo fadhiistaan dad aan inagu diinahayn oo inagu dhaqanahayn inay kala celiyaan nasiib darrada adduunka ka mid ah baan u soo joognay innagu iyo ka mid ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu arrinkaa inaga soo furto dadku waa isdilaa soomaalidu waa isdishaa waa kala irdhoobaan yaa heshiisiiyey dadka soomaaliyeed iyagaa heshiiya dad islaamana heshiisiiye ma arag anigu adduunka dad islaama oo gaal heshiisiinayso dadka marka la heshiisiinayo waxa la yidhaha war ilaahay ka baq ninaan ilaahayba garanayn ba halka fadhiya say u heshiinayna marka waxaan rabaa marka arrinkaa dib heshiisiinta ee ugu horreysa qodobkaygu waa muhiim soomaalidu hadday heshiiso amison uma baahnaan doono maraykan u baahnaan mayno reer yurub u baahnaan mayno haddaynu heshiino oo si dhaba u heshiino waynu naqaanaa 10 sannadood 5 sannadood 3 sannadood 4 sannadood ee qofku uu hayo xukunka ka badan Soomaaliya inay heshiiso horaynu soo aragnay 1969kii markii dowladda gacanku ay qabsatay dalka ilaa 1977 toddobadaa sannadood isku filaanshu dalku gaaray markuu gaaray kadib iska daa dalka gudihiisa waa taad ogeydeen waynaga harar garaacayni ilaa harar
intii kale in la xoreeyo watay inoo suurowday waa 7 sannadood gudahood maanta innagoo intii ka tacliin badan ka xoolo badan ka badan oo tiknolojiyadu si walba isku bedeshay in maanta halkan inta laynoo soo fadhiisto la yidhaahdo Soomaaliya ma heshiin karto waa dal feelgaroobay oo nolosha ka dhacay waa nasibar marka sidaas ay u kaliftay kelmadda dib u heshiisiin dadku waxay qaataan wax fudud oo inta hoolkan oo kale dadka lagu soo xereeyo la yidhaahdo heshiiya macnaheedu saama waa dib u heshiisiin dab awey waa waxba ka dambeeya laakiin gobolka kacma waxaa ku xigta waa dib u dejin haddii la heshiiyo dadku way isu soo hiloobayaan waa la isu furmayaa bayc mushtarka isu furmaya siyaasadda isu furmaysa dhaqanka isu furmaya hadda intii yarayd ee dalkan caasimaddu ay nabadgelyada qaadatay waad ogtihiin inteenaas waxaynu ku kala nimi adduunka oo dhan anigu 32 sannadood ugu dambeeyey maynan muqdisho maynan hadda sababta lagu soo dhiirtay waxaa ka mid ah waxaa iiga muuqda ifafaalihii caasimadda beriga aan ka tegay ay ahayd baa iiga muuqda hadda markaan tegay dib u heshiisiinta dib u dejintu waxay keentaa dhaqaalaha oo kobca arrimaha bulshada oo kobca dadka oo isu socda magaalada waa ku soo wareegay haarihii way ka muuqdaan civil war ama dagaalkii sokay way ka muuqdaan laakiin waan ka soo kabaynaa insha allah dowlad wadaag ayaa ku xigo qodobka saddexaad dowladda waxaa loo dhistaa in la wadaago xukunka iyo dhaqaalaha ama resource wax la yidhaahdo labada haddii la waayo waa la isdilaya waa lagu kala tegaya waxyaalaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya dumiyay ay ka mid tahay kuwa adduunka inta isdilayeen waxyaalaha dumiya labadaas badligu ah dadku markay wax ku heshiiyaan waxay ku heshiiyaan waa inay si cadaalad ah u qaybsadaan oo ku heshiiyaan hadda waa la qabto annaga xagga waqooyiga waxaa la yidhi tabashaa ka jirta fara badan dee wax cadoo tabasho maayo waa wax xaqaaiq oo yaallo weeye ilaa 1960 ilaa haddeer mar macalfan محمد الله محرسه محمد حاج إبراهيم عقال على خليفنا سنة هي بترقب كفر فيها كركع سري الله ما قدر صوب النية وشو ما ركضي شركة قال لي ولا ما تصوم عليها يا هلك ما ركض اللي أنا بصور لهم مركز طاوع حساب طبعا سري ورمني باي بجاي ووضعنا مركز هذا حساب ده أيام الديار نايم حساب waxaa ku xiga waxa weeye waa daryeel bulsho haddii la heshiiyo oo dib la isugu soo noqdo dadku guryahoodii ku soo noqdaan oo dowladda la wadaago bulshada daryeelkeedu iyada imanaysa waxaa kowka ah nabadgelyo haddii la helo bulshadu arrimaha bulshada wax walba way soo dhawaanayeen tayeynta waxbarashada caafimaadka infrastructureska ama waxyaalaha la yidhaha kaabayaasha dhaqaalaha wax waliba way kobcayeen marka taas laftigeedu iyaduna bulshada halkaas ku jirtaa ugu dambeyn waxaa imanaysa in dalku midoobo oo laga baxo waxyaalahan qoqobka ah ee maaragtay la leeyahay oo la heli lahaa goobsatay iyo halkan ay ka baxday iyo insha allah anigu waxaanu taagnahay midnimada ummadda Soomaaliyeed dowladda waqooyi baan ka imi waad ogtihiin maamulka Somaliland wuu maqan yahay maamulka Somaliland waxa weeye ma qabo in soddonki sannadood ugu dambeysay dariiqii loo mari lahaa wadahadalkooda in dowladihii igu horreeyey inay mareen oo malaynayo anigu haddii ilaahay igu guuleeyo si fudud oo aan dhaqaalo badan ku bixin aan dibadaha la isla tegin oo aan lagu kala kicin si fudud baan ku keenayaa dowladda waqooyi midna waa ballan ummadda Soomaaliyeed inaysan weligeed kala tegin baan ballan ku qaadaynaa haddaanu nahay gobollada waqooyi inta midnimada jecel taasaa ballanno ugu dambayn waqti badan baad fadhideen waqti kale wada qaadan doonaa aad baan uga xumaayay inaad maaragtay ilaa 3 saacadood wax ka wada fadhidaan oo aad aniga dartay u fadhidaan aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahad celinayaa fadhiyo badan oo kala duwanna waan qaadanaynaa insha allah haddii alla ka dhigo waxaan ka codsanayaa malaaqyada iyo maadaama ay tahay doorashada mid dadban oo one man one vote ay ahayn inaad igu taageertaan inaan qabto xilka madaxweyne ee sanadka soo socda kaas oo wax badan soo afjari doonta boqolkiiba 80
tabashada laga taban gobolada waqooyi ay tabanayaan soo xiri doonta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.